ومناسبات قالها وحيكون صابسان تهي وحيالها بني آدمي هو أنو كمار من نورشيسو بيوه وأغني هاي قفنا لو شيء ما ينتهي halkaa joogta iyo cid kasta oo nool loo sheegi maayo biyuhu qiimaha ay leeyihiin noloshuna inaynan jiraynin biyo la'aan taasaa inaynu xoogga saarno oo biyo nadiif aan helno waddankeena dhammaantiin abaar baa dhacday berigii oo weli sii jirta waddanka guddida abaaraha culayskii ugu badnaa in la kulannay wuxuu ahaa in biyo la helo baahidii kale meel kasta abaartu ku adkaasta waxay dadku weydiinayeen raashinku weydiin maayaan calaf xooleedku weydiin maayaan laakiin biyayna weydiinayeen culayska ugu weyni biyuu ahaa dowladda waxaa naga go-an in intaa xukunka ah shantaa sannadood oo weliba sanad iyo badhi ka badan tagtay ilaahay inaad noona ducaysaan ilaahayna aanu tala saaranno in Somaliland boqolkiiba 80 hadday boqolkiiba boqol heli waayaan boqolkiiba 80 ay biyo helaan haddii alla yiraahdo maareeyuhu wuxuu ka dhawaajiyey boqolkiiba nus boqolkiiba 50 inay biyaha la soo saaray Hargeysa yihiin meeyer maareeyaha waxaan leeyahay iyo meeyerkaba waa idin garab taaganahay wasiirkii maaliyaddu waa fadhiyaa lixajacada waan ka ilaalin inuu lacagta ku adkaado markay biyaha Hargeysa timaado iyo biyaha Somaliland waanu maqlaynaa waxaan rajaynaynaa 2 sannadood iyo badh inay biyaha Hargeysa iyo magaalooyinka oo dhan Somaliland ay helaan ugu yaraan boqolkiiba 80 dadka ku nool waayo noloshu waa biyaha xooggaan saarana madaxweyne ka go'an tahay way ka go'an tahay dawladda ka go'an tahay haddayna biyo helin noloshu waddanka ma hagaagayso waa ogtihiin sida wasiirka madaxtooyadu sheegay 2 shay haddaynaan meel ka gaarin horumar ka gaarin nolosha dadku iyo waddankuba way silci doontaa biyaha iyo laydhka magaalooyinka masalan imika xeebaha kale dhul ku laaday haddaan laydh ku jirin nolol ma jirayso waddankan adduunyada cimilada isbedelaysa Hargeysa waxa la arki doonaa haddii alla yiraaho kulaylkeegu gaadho inta xeebaha imika maanta ay taagan yihiin xeebuhuna dhaafaan aan ku dadaalo ganacsatada waan mahadnaqayaa waa bogaadinayaa laakiin labadaa shay yaynaan macaash ka raadinin biyaha iyo korontada yaynaan macaash way ka raadinin dawladdana way ka go'an tahay inay waxalla wixii ay awoodi karto in hore loo mariyo wejiga saddexaad maanta wejigii labaad meeyerkuna waa maareeyuhuna waa kan fadhiya meeyerku waa jooga wejiga saddexaad insha Allah waxaan rajaynaynaa inay magaalada Hargeysa biyuhu boqolkiiba 80 gaadhaan hadday maanta boqolkiiba 50 tahay ilaahay barino abaaraha jira waddanka ilaahay raxmadiisa haynoo liso. I thank and welcome the delegation from Germany and the bank KfW. Welcome to Somaliland, and we thank you for your cooperation, and we expect you continue that so much. Adiyad ba'di wa salaam ya dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ducaysano ilaahay wixii dhibahana inaga weeciyo wixii khayrana Allah ina siiyo aan isku calool fiicnaano markaas ay ilaahayna inoo naxariisanaya meel kastoo joogno